ninbaa wuxuu jeclaaday inan jaarkiisa ah oo wadaadahoo cibaadaysata waa nin dhallinyaro ah iska dhanxiira wadhabanada xiira yara maykalka isu yara egeysiiya inantii markaa waxay tihi dee waad fiican tahay sida kale laakiin dee diintaadaa daciifa intaad sidaa tahay aniguna dee tafsiirkaan akhriyayaao islama jaan qaadi karayno wuu ku celceliyo sidii bay ku qaadan kari weyn markii dambe wuxuu jacaylkiibaa dhinacan ula kacayoo dee mad wadaad bay iska dhigtid buuri waa ka dhabanaxiirkii iska daaya timihiisa caadiya u xirtay qamiiskiibuu qaatay safal awal ku istaagay qamiiskii intuu gaabsaday cadaygiina dhegtu soo saaray yaa iga wadaadsan buu leeyahy waaya markuu xoogaa ku waday inantii way iska aamintay oo way guursatay xoogaa markuu qabay ayuu sidiisii hore ku noqday ilaan waa diin lagu doonayey ruux dumara guurkeeda iyaduna sideedii hore ku noqotay anaa laga xigaabayd haddaad sidaadii hore ku noqotay anigana ay qaadan kari maysidoo i iman maysi waa iska joojisay jacaylkiina waa hayaa shaydaankiina diintii u diid maxaad yeeshaa buui markaa mid sixirlaa buu u tegey marka war bal inantan ii shilib xidh buu leeyahy ma diidayn baa la odhan jiray soomaaliga waa la qallaxayaa qofkii sixir baa loo adeegsanaya jiban khuraafaadlaa loo tegaya ninkii wuxu uhi bal 7 cisho kadib igu soo noqo 7 cisho markuu ku soo noqday baa wuxuu ihi waxaagi waxba ka suuroobi maaya hawsha aad sheegaysana ma furin karo oo gabadha waxba kaagama tari karee midiga dubaalo dheer baa jiro oo khuraafaadla iga sii weynaa oo meel heblaayo jooga bal xaafad heblaayo ugu tag kiina wuu tegey 7 cisho kadib igu soo noqo buu markuu 7 cisho kadib u yimid buu waxba iga suuroobi waayeen arrintaadii waxalla waxaan dhaqaajin karaa ma jiro ee balka booska noogu weyne balaayada u weyn xambaarsan sixirlaha u weyn hindiyuu joogaa hindiya tag qalinkaana ku dhacday iskamuu harine diyaarad buu qaatoo kiibii hindiya ugu tegey kiina wuxuu ihi 7 cishaysu anaa basbaaska u weyn marinayeen 7 cisho kadib buu ku soo noqday isagoo xanaaqsan buu u yimi oo cirkaa maraya isagii u cadhaysan wuxuu ihi agtaydana ha soo marin mar dambena ha iman obreshonkaaga iyo hawsha aan galay 100 kun oo askariyo jina baa iga dhintay guriga gabadha aad sheegaysa gurigeedana si joogto ah baa suuratulbaqara loogu akhriyaa buu marka wax kaaga suuroobayaa ma jiree orod iska dhaqaaji dibna ha igu soo noqon dee kabiirkii u weynaa ee kaafirkii u weynaa buu u tegey halkiibuu ka soo huleelay isagoo hungoobay wax badan baynu ka arag anigu waxaan u soo joogay qolaa magaaladeennana ayaa reerkii wada xanuunsaday aqalkii waxbaa ka uraya culimaanu bal suuratulbaqara wixii markaa uraya waa la arki laaya meel laba waa laga arki waayey suuratulbaqara waanu akhriyay waa la akhriyey bisad madow oo halkan quruntay oo wax lagu soo qabtay baa taalaba intii hore lama arkaynin waan u soo joognay arrintaas laakiin markii suuratulbaqara la akhriyay baa ilaahay kashfigii uu ka qaaday iyo wixii la qarinayay almuhim waxaa casharkan ii geeyey faa'iidada iyo sirta iyo xigmaddu iyo dawadu agteennay taallaa sharciga ilaahayna way ku jirtaa waa inaynu ku dhaqanno inaan saloogin weliba wakhtiyada qiyaamuleylka marka lagu akhriyo habeenkii salaatuleylka ee lagu sii celceliyo ee aan laga daalin baa dawada weyne ay ku jirtaa bay leeyihin culimadu waxaa laakiin iska macruufoo jira shaydaanku wuxuu dadka ugu sawirayaa inay suuraddii dheer tahay 2 jis iyo siyaado tahay aan la akhriyi karaynin dhaabad buu ka saarayaa halkaasaa markaa dadka fursaddu ay ku dhaafaysa haadaa ma aquluhu astaqfiru اllah wasalaamu calaykum